Carragher oo si lama filaan ah u sheegay in Salah keedka la dhigo sababta ayuu sharaxay. Kabtankii hore ee Liverpool Jamie Carragher ayaa kula taliyay Slot inuu kursiga keedka geliyo Mohamed Salah labada kulan ee soo socda. Carragher ayaa hadalkan jeediyay kadib markii Liverpool ay 2-1 guuldaro kala kulantay Manchester United kulinkii Premier League ee habeennimadii xalay, taas oo ahayd guuldaradii afraad oo xiriir ah ee Reds la kulantay tartamada oo dhan. Carragher ayaa aaminsan in qaab ciyaareedka liita ee Salah uu qayb ka yahay dhibaatooyinka kooxda haysta. Kooxda Slot ayaa la ciyaari doonta Eintracht Frankfurt kulanka Champions League ee isbuuca dhexe ka hor inta aysan u safrin Brentford horyaalka Premier League. Carragher oo la hadlayay Sky Sports ayaa yiri Liverpool waxaa horyaala 2 kulan oo away ah, mid Champions League ah oo Frankfurt ah iyo mid kale oo Brentford ah. Anigu ma filayo in Salah uu ku soo bilowdo labadaas kulan. Wuxuu sii raaciyay wuxuu mar walba ku bilaaban karaa Anfield sababtoo ah halkaas Liverpool ayaa badanaa xukunta ciyaarta. Wuxuu ku dhawaan karaa goolka, waana inta badan halka uu goolal ku dhaliyo. Laakiin kulamada dibadda iyo marka aad u baahan tahay inuu caawiyo difaaca garabka, ma rumaysna in Salah uu hadda u qalmo inuu ciyaaro kulan kasta, gaar ahaan kulamada banaanka marka la eego qaabkiisa hadda. Farqo wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaasna waxay qayb ka tahay barnaamijkeeni bandhiga ciyaaraha oo aan mar walba ku soo qaato wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaarto ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.